okay hadday ina qisada la socoteen ma aqaano gabar saaxiibadaya oo aan 10 sano saaxiib ahayn oo muddo isnaqaanay ayaa meelahaas intee kortay xaaladooda iga sheekeynaysa aniga yesterday markaan wiilka eedada aan u ahay Sharma boy aan garab istaagay qofkii ku xigay oo isoo caayinay eedaday bay ahayd oo Sharmaake eedadiisa Soomaaliya serious in la hadlaa qofka aan dhibaatadan oo dhan u maray oo intaanoo dhiba ninkan ii marsiiyay oo intaanoo cay iigu dhacday intaanoo xumaan iigu dhacday intaanoo qof ay isugu kay soo raacday dartiis thank you hatta one day intuu teleefankayga soo wacay thank you eedda macaan marin laakiin waxaan idin sheegayaa Soomaaliya saaxiibtay baa ku cayda leedahay ninka waxaan dhibo u galay hatta thank you iska dhaafay hatta hambalyo ii qoor waa intaan guursaday niman reaction ka bixiyo ceebihiisa iyo caydiisa ku raaxaysto YouTube ka fadhiya buu heeso u soo qaaday Naciima Joker oo markii ugu horeysay afka furatay ayaa si xun u karbaashtay fanaanka Sharma Boy waxa ay sheegtay in dartiisa ay dhibaato fara badan u gashay dagaalna uu ku socday hal sano kaas uu ku waday Daahir Calasow hase yeeshee qofkii ay dagaalka dartiis u gashay waa Sharma Boy meeshii uu difaaci lahaa in reerkiisuba ay aflagaadeynayaan Naciima Joker haddaba daawadayaal waxaan kula wadaagi doonaa muuqaalka gabadha Naciima Joker iyo sababaha ku kalifay Sharma Boy in uu gabar dartii dagaal u gashay oo la jaaifeynayo uu garab istaagi waayay halka kuwa kale oo YouTuber ah oo aan waxba u qabanin uu heeso ku soo qaaday magacyadooda haddaba daawadayaal intaan u gudagelin fadlan marka hore muuqaalka la garay si uu u gaaro ummadda Soomaaliyeed ayna u garab istaagaan Naciima Joker sidoo kale nagu soo biiro ka mid noqo asxaabteena adigoo janaalka subscribe dhahanaya ganbeelkana u furanaya haddaba daawadayaal dagaalka u dhaxeeya Naciima Joker iyo Daahir Calasow ayaa faraha ka baxay wuxuuna marayaa meeshii ugu dambeysay haddaba Daahir Calasow oo dhabarjabintii ugu xooganeed ku sameeyay Naciima Joker ayaa u adeegsaday gabadhii ay saaxiibada ahaayeen Naciima Joker ku dhawaad muddo 10 sano ah wana gabadha isbartay Naciima Joker iyo ilka casi wax walba oo xoga way lahayd Naciima Joker Daahir gacanta ayuu ku dhigay oo maanta isaga ayaa maamulanaya waxuna inta live soo gala ku jeesjeesaya ma soo bandhiga mise waan haystaa haddaba daawadayaal waxa soo idil waxa ka daran mural diraaca ku dhacay Naciima Joker kaasoo ah in qofkii ay dagaalka dartii u gashay Sharma Boy ahaa uu dagaalkii kaga baxay una ku fiirsanayo sabab la xiriirta inuu xifaaltan faneed kala dhaxeeyo ilka casi bal haddaba aynu isla daawano Joker iyo waxay ka tiri Sharma Boy iyo reerkiisa oo aflagaadeynayo hadda ma ahan reer kale ee fog waa eedadii oo aflagaadeynaysa Naciima Joker ina dhiiqi galisaan waxa rabtaan inaan qof caayo waxaad ku raaxaysanaysaan in anigana la caayo inta aad ii soo qoraysaan hadda naacay doqon baa tahay handikaabad baa tahay maacaydi dadka ay leedihiin ayaad qofka kale u qoraysaan just waxaad rabtaan ina aniga dhiiqa everyday galisaan marka anigu go'aan baa gaaray inaydan dhiiqa dambe gelin because inta aan ku jiro qofkii ii galiyo TikTok iska raaxaysanaya maalin walba hees cusub buu soo saaraya qofka aan dhiiqadan ii galiyay yesterday qofka aan u hiiliyay aan garab istaagay eedadiis aabihiis la dhalatay iskooysku aabihiin baa daraad aniga ii caayaysi oo TikTok ii fadhiday yesterday markaan wiilka eedada aan u ahay Sharma Boy aan garab istaagay qofkii ugu horeeyay soo caayay wuxuu ahaa wiil adeerkay dhalay qofkii ku xigay oo isoo caayinay eedaday bay ahayd oo Sharmaake eedadiisa anigana qabiil ahaan waan simanahay daahan ha ahaato hooyaday oo kale laakiin qabiil ahaan waxaan laba qof oo ilmo adeer oo siman ayaa ii caayaysay waa qofkii ani aan u hiiliyay oo dartiis dhibkaan oo dhan ii soo gaaray niman reaction ka bixiya oo lacagta ka sameeya YouTube ku heeso u soo qaaday حتى thank you كلمة لده كما هيو وانك أنا قد كانوا دنا عمرايو imagine that Soomaaliya serious in la hadla qofka aan dhibaatadan oo dhan u maray oo intaanoo dhiba ninkan ii marsiiyay oo intaanoo cay iigu dhacday intaanoo xumaan iigu dhacday intaanoo qof ay isugu kay soo raacday dartiis thank you hatta one day intuu teleefankayga soo wacay thank you eedda macaan marin 7 months حتى وحو إيه قورو واي
tigtageysa markaan guursado inuu hambaliyo iga dhaho buu ii qoori waayay ninka intaasoo dhib u maray waa aamusaya haa waa ogahay maya waa aamusaya halaasa uga baxay iyadana sheekadaas laakiin waxaan idiin sheegayaa Soomaaliya saaxiibtay baa ku cayda leedahay ninka waxaan dhib u galay xataa thank you iska dhaafay xataa hambaliyo ii qoori waayay intaan guursaday hambaliyo eed macaan waa guursatay hambaliyo ii qoori waayay niman reaction ka bixiyo ceebihiisa iyo caydiisa ku raaxaysto YouTube ka fadhiya buu heeso u soo qaaday anigana eed macaan hambaliyo ii qoori waayay wax kala ka sheekeynaysa adiga marka bini aadan ma asxaan leh bini aadan asxaan ma laha laakiin se dagaalkan runta idin sheega Soomaaliya seriously dagaalkan aniga aan galay ee aadka u adkaa oo 2 sano iyo 1 sano aan ku socday bini aadan aan ku kala bartay belief or not aan ku dhahay qabiil kasto noqdo bini aadan aan ku kala bartay dad badan oo waxa aragteen isoo caayay aniga Naciim ahaan oo ana u jawaabin sababta ugu jawaabi waayay waxay tahay dadkaas waxa dhici karta in abaal aad adiga ogeyn aan u hayo waxa aragtay beesha dhulbahanta dad badan oo ka dhasho aniga iyo caayaya waligeey ma aragtay anoo beesha dhulbahanta u jawaabay sababta u jawaabi waa mataqaanaa dagaalkii xoog badnaa aan soo galay beesha dhulbahanta 100% iga soo qayb qaateen daas waa aan dhulbahanta ugu jawaabi waayay si kasta ii soo caayaan marka 2 qof iyo 3 qof oo TikTok joogta I don't give a shit kaas aniga abaal bay ku leeyeen beesha dhulbahanta I wish inaan ahaan lahaana I wish inaan ka dhalan lahaa waa aamusi karaa aniga dhibaato iguma fadhido I don't want ina emotionalkayga raaraaca by the way okay hadaayay ina qisada la socoteen ma aqaano gabar saaxiibadaya oo aan 10 sano saaxiib ahayn oo muddo isnaqaanay ayaa meelahaas intee kortay xaaladoo la iga sheekeynaysa aniga sheekadii baa codadkii Xamdi Kalgacal baa qolkeeda iska tagay ani ma ogeyn Xamdi Kalgacal qolkeedana codka ka dhageystay anoo shaqo ka soo baxo marka dharka iska bedelay casarkii ay ahayd ayaan dhageystay kadibna codkii baan si fiican u dhageystay waxaan iri ayadii ma ahamay xalana waa la ii soo sheegay laakiin ma believe gareynin mana waan ka gaari weynay gabdho kale oo saaxiibadayaan wacay oo u diray oo dhahay dhageysta ayagina maysa soo dhageysan intii ugu dambeysay ka gaareen marka gabadha wax xun iga sheegtay lama socon maanta marka maqlay gabadha waxay ku hadlayso I could not believe waan wacay waxay igu jawaabtay naya in adeerkay waa in Irish Soomaali marka saaxiibtinimadii waxa kaga qiimo badnaatay in adeerkeed macnaha saas oo qiimo badnaatay ayada warheede lidinu life iga saaru rabaa waa ogahay kaas ka soo koro nin lagama sheekeena or naga takruufiyaanimada nagala tag qays bay dhiig inay geliyaan rabaan moogta qays bay maanta oo dhan waxay ku hayaan waa fulay qof ha soo dilo waay qof islaam dhiig tamii sheegi kartaa qof islaam ah ana u diiday qays ana hadda idin leh ninkayga xabsi inuu galana ma rabo dhiig inuu galana ma rabo qof inuu caayana ma rabo hadduu xataa hore u caayi jira hadda ma caayayo qof hadduu qof hore u maagi jira ma maagayo hadda xabsina iskama geynayo ninkayga anaa u baahan qofna ma dilayo waa ugu haysin horta qays ninkaana soo dilo qays nin ha dilo qays waxa sameey ninkayga waxa ma sameynayo maxaa ninkayga xabsi iga geeya aniga ma ninkayga xabsi u quuraa ma ninkayga qof bini aad inuu dilo taada kala see ula seexan hadduu qof soo dilo waaba ka baqaaye hell no qof dilo aan lama seexanayo are you crazy no ha ismahani waa iga qoslasiis wallahi abay maanta dhan waxay igu hayaan teeri social media ninkaaga muu ninka dilo fuliysana ninkayga anaa u diiday inuu wax dilo because xabsi hadduu iga galayaan nin ii noqonayo waay maanta dhan ninkayga wax soo dilo teeda kale macay hadal social media laga yiri inaan dhilaa ninkayga waa ogyahay inaan sharmuutaan waa ogyahay ninkayga waa ii yaqaanaa in ku filan wuu ii yaqaanaa muxuu qof bini aadam u tago u soo dilaa xoog badan idina hello ما يقان أمير سبحان الله سيلك أمريكي أنا بقف كلا حتى أمي أقول ما قاعد يسوع ورا أبتجي أو تيجي تصاق قصته إيربورت هولن تاجنا ده أبتيو معانو والله هدا لابن ويسأني أدوك كل جوينا أبتجي يا أودي ذي
uu qolka murtimaal haddaad joogtay ismahane uu ka dhahayay naciima iga celisay airbortka Holland abtigaa u diiday ninkayga yaa ila joogaayo yaa nin ii noqonayo markaa ninkayga nin soo dildho anuu ma furin baa ku jira aniga raashiyaa ka dhigteen wallahi dadka wax runta u sheegay laayihiin wallahi an run la ku dhintaa ma ogtahay war ninkayga qof ma dilaayo anaa haddii idiin sheegaayo qof ma dilaayo xabsina ilaahay igama geliyo dhibna ilaahay igama keeno teeda kaleeto markaa qof bini aadan caqligaaga fakar ismahane beentay miyaa bal fiir kelmadda aan ku dhahay qof bini aadan ah si kastuu kuu caayay si kastuu kuu dhibaateeyey diinta islaamka kitaabka kala furo meel ay ku qoran tahay ii sheeg qof bini aadan naftiisa in la jaro hadal dartiisa intee ku qoran tahay waxa kaloo ii sheegtaa marka aniga qof bini aadan gacantiisa intuu qof kala qaado uu dartay u dilo aniga nolosheeda inta dhiman ma shooldarkayga inaan fiiriyaa rabtaa oo dekana aan qabo aniga xamar inaan tagaan rabaa habar gidir waa dhala gurceela kuwa habaratu ah jooga inaan tagaan rabaa cadaadaan rabaa inaan shaahi cadaysko macaana caanaha geelka lagu cadeynayo kasoo cabo maxaa aniga dekana iiga gelinaya Soomaali Maxamed halla baxo nin halla soo dilo subxaanallah walaa gelin odagayga waxaan rabaa heesihiisa raabka ahoo hirgalayo laandheerayaasha inuu kasoo qaado hobyo uu kasoo heesaa rabaa Muqdisho maxaa inoo gelinaysiin dekano family cusub aroosaan nahay ninkayga haddii xabsi la geliyo oo 20 sano lagu xukumo what is the point mii sheegi kartid crazy you guys are sick wallahi waa jirantihiin waxanuuna idin haayo أعوذ بالله من الشيطان الرجيم that is sickness والله qof ku fikira in qof la soo dilo intuu ku jiro oo dhahayo qof la soo dilo qabiil dartiis qof la soo dilo ay darteed you are sick aan ku dhihi lahaa qof illa dilana ma aaminsana yani adu hadaa aaminsantahay adiga ninkaaga u dir adaa lacag ku siinay ninkaaga u diro soo dil oo adiga ninkaaga hal xiro laakiin not my husband صح واي صح اسمعني وصل دقالك جوجين dadkan ay warkiisa ismaan amiis Minnesota wallahi fiican ay masgoorma noo soo laabanayde after Ramadan insha Allah hay maanta dhinac ku daawanay way igu caweystaa request maxaa ku soo qabtay waa dhacday waxa la meeqaan waqti marka ku arko waxa jeclaa inaan kula laabiir ay warkiisa ida fiican wallahi waxaana u joojin dadkan haweer quranka mahani ani aad meeqasana saaxiibna I love you so much you know that long time wallahi meeqo 25 years 20 years 25 years almost 20 years why I know waxaa isla joogna Kenya 3 sano mise 4 sano Mareykan waxaa isla joognaa 16 years mise 15 years adi 19 years 17 years ha Mareykan waxaa isla joognaa 16 years 17 waa 16 waa 2006 هاي ساعة 2005 ديسمبر أنا كي مدة هذه بشاكة تمت هذا يكسوريه كم سهرة من صار هذا يكسوريه مركا إما هذا يتمت remember ها هذه 15 ويا ها أنت أساس نقانا اسمهان أنت أساس أسل الدقنين ما فهمتي marka habriyada macaanay dadkan waa iska garanaysaa maanta oo dhan social media horta maalintan galay ismaani horta xaasida tahay horta ruwaayadaha ilaahay inta ka baqda caawa ruwaayadahan ilaahay inta ka baqda ismaani yaa igu qalqaaliya aniga I was me waxaan uba yaa ii keenay marka ani drifka haduu bilowdina calada dadkan hadeer bilaabeene ما يلاك وحن هذا يقول قلقالي والله أنا وحى أمسنا وحى هذا يقولي ده هبيركو talent يا لذا كوميديانا تدك دون كجعليهين وأقطعي أنت حاسد كوادات قبل هبريري دتك أنت هرت ما عندك هرت وحن سمي هرت فيرست نايت واحد سوستا شقة كجري كليبير أو 10 سكند وحن كوسو دير عن فلتر إسساري ما حسوستا هلا سأقص لاي أو ماي جاد سأقص ليس واسكو كاز واسوا على حاجة قلت ما سميسي ها هبير دا حتى gabadhi ku jirta fiir waxay ku dheeyay abay noo soo celi wixii aad sameyn jirtay dhan TikTok u gooy waa runtii sihaamay ogow yaa ana waa itaqaana qof alaal qofkii ii hiiliyay
aniga koraan kala socdaa iyo ciddaan ii helin hadda ka horna gabay baaban ka tiri oo waxaa iri bah cilaamo goortay dhammaan igu dulbooyeysa bah sarraysna baga i tiri beerka ka ogsooni aniga cid walba waxay ii tahay waa aqaanaani maanta today ani soomaali isma kay barayso soomaali dir iyo daarood iyo hawiye iyo jareerweyne iyo isaaq iyo reexa marka cadcad ani cid iskay barayso maanta ma jirto qof walba intuu dagaalkan halka sano ninka ragga ah oo boqolowga igula jiray qof walba meeshuu ii taagan yahay waa ogaani qof walba meeshuu ii taagan yahay ogahay ninkii ii sokeeyo ilaa mu adeerkay aabbahay la dhashay ku dhala I don't care ninkii ii sokeeyo oo wanaag ii galay iyo ninkii iga shisheeyey ninkii ii sokeeyey ani wanaag dhan aan ii gelin oo igu wiirsanay iyo ninkii iga shisheeyey oo ka danqanaya xumaatadeyda labadaba waa ogaani inaa ogeyn ha umalayn anigaaba og baabaya anigaaba qof kastoo nicimo u damqaday ama qof kastoo nicimo u hiiliyey waa horta kii soomaalnimo kuugu hiiliyana wuu mahadsan yahay kii tolnimo kuugu hiiliya wuu mahadsan yahay horta qabiilka ilaahay baa inaa isku barana keenay teeda kale wayba diintaaba ogolba qofka walaalkaaga haddii laga khaldan yahay inaa garabsiisa u hiilisid maya sometimes dagaal waxaa u gashaa dad iska dhici dagaalna ilaahay subxaana watacaala markuu imtixaan ku marinayo because dadka biniaadankaa waa wax ilaahay kugu soo imtixaami kara soo maa imtixaan markuu ilaahay ku marinayo waxbuu kugu kala barayaa maybe inaa ahaa qof qabiil oo ummadda kala saarta oo rasiista ah qalbi ahaan ama dadkeeda aad u jecelo qabyaalada ku dagaalanto oo macnaha dee dadkeeda aan laga marin inaa ahaa maybe ilaahay inuu itusaayey in ay jiraan kuwa aniga aan ii dhoweyn sida dadka qaar kaloos iigu yihiin oo iiga danqasho badan kuwaan maybe ilaahay inuu itusayo qof walba meeshuu ii jiro you never know yesterday tolkayaan dhahay maya mar waa hadashay micnaha taasoo kale ceeb maaha laakiin dhahay baa haddana waxaan ku leeyahay dagaalkii yesterday aan soo galay iyo dagaalkii sidii loo ogaa aan soo maray والله كلها وبناي وقت حقاتها dagaalka aniga isdifaacay waa ogahay laakiinse yesterday dagaalkii aan soo galay bini aadanka aniga ila dhashay iyo kuwa iiga shisheeyay waxay doonaan ha ahaadaan qof walba meeshuu ii jira ilaahay i kala baray experience yu ilaahay isiinay trust me 1 year and half gabar la caynay oo dumar oo hormoonkeeda isbedbedelay oo one day qabiil intay u soo fariisatay ana cayin hadda waa rekorkaas aadan waxay yihiin maaragtay waa kala bartay ama ii sokay ama adeerkii abeel dhashaa ku dhala ama ilma adeer ahaan ama reexirsi oo ama cumar maxamuud oo ama majeerteen oo ama harti oo ama daarood oo ama kablalax oo qof walba daarood ismaaciil ha noqoto ama hawiye ha noqoto qabiil kasta wallahi meeshuu ii jooga maanta waa ogahay horta qofka walaalkaaga ama saaxiibkaaga horta maalintu garab u baahan hadaad garab istaagin waxa u tahay male inaad biri ku fahamtid horumarkiisa iyo quruxdiisa iyo waa khalad da maalinta uu kuu baahnaada garab siinin teeda labaad aniga maalinka miidiyaha aad ka hadlaysid dad waxaana soomaalikood fareen mar walba is og weligeed ma arkin naciimo oo qabiilka anigu wallahi adiga da'aan mar walba qabiilo badan cayn lahaa weli ma arkin naciimo si kastoo lagu soo caaya xataa rag waaweyn qolal kuu soo furteen ku caynayaan haddana leef kuu soo galayaan haddana weli maasha allah xashaa lilah weligaada qabiil maada gelin maya aniga inta ii soo qabsadaan qof wuxuu dhahaa aniga nin habar gidira ahay naciimoy haye ii waran waa is waraysanaa waan kala tagnaa waxyaaba caadi ah dadka sheekisana magaalada waa isla shaqaysanaa dad qaar isla shaqaynaa jiro shaqada aan ka shaqeeyo dad isla shaqaynaa weligood social media kuma soo hadal qaadin ana baraadi waxa la dadka dhahay qabiil soo haysa waa qusnaa walaa xana naciimo qabiilka soo haysa yaa way ku tarmaado hurdid soo haysa stop abay horta waa ogahay hadii la waramo waa la walaalbeela laakiinse ogaada meel kasta iga joogtaan waa ogahay haddaba isku soo wada duub arrintani waxa ay muujinaysaa in runtii dagaalkii sanadka soo socday ee baraha bulshada la isku jiidjiiday in daahir calasow uu runtii guulo waaweyn qaatay runtii maaha inaan taageersanahay daahir ama dhinaciisaan ahay balse marka la qiimeeyo waxaad moodaa in dhinacii kasoo horjeeda uu kala jab baaxadla ku dhacay iyagiina ayba is-haystaan oo mid ay isku xaganayaan welina isagu halkiisii iyo mabdiciisii uu taagan yahay haddaba daawadayaal warbixintii aan ka diyaariya halkan ayaan kusoo gabagabeynayaa inta aan muuqaalkiisa kala kulmayno sida ayaa nabadgeliyo mahadsanidin